aqalka dowladda hoose xamar ayuu ka dhacay kulan ujeedkiisu ahaa dardargelinta sugidda amniga caasimadda iyo xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa maamulada degmooyinka, hay-adaha amniga iyo shacabka, kaas oo shir gudoomiyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso. kulankani amniga ah ayaa waxaa ka qayb galay degmooyinka xiga qaybta bartamaha iyadoo ay xaadir ku ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka, saraakiisha amniga iyo hogaanka sare ee guddiga wacyigelinta abaabulka qaran ee xoogagga wadaniinta Soomaaliyeed, iyadoo duqa magaalada Muqdisho uu warbixino quseeya xaaladaha degmooyinka ka dhageystay mas'uuliyiintii kulankaasi ka qayb galay. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso ayaa tilmaamay in la iskula xisaabtami doono howlaha amniga quseeya, isla markaana ay muhiim tahay in la xoojiyo isku soo dhawaanshaha laamaha amniga iyo shacabka si loo dardargeliyo la dagaalanka nabadiidka. kulankaasi ayaa markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay agaasimaha guud ee waaxda amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cabdifataax Xasan Cali. marka meesha loo socda ayaa waxay tahay ciidamada hadda joogo waaxihii iyo degmadii waaxaheedii joogo in loo soo dedejiyo laamihii, shacabkina ay sameeyaan muxuu ahay la falgalaan oo ay isku dhaxmilmaan oo ay wada shaqeeyaan. waxaan u mahad celinaynaa degmooyinkii muujiyey dadaalada oo ay ka mid tahay degmada warta nabadda iyo degmooyinka kale oo muxuu ahay kooxihii argagixisada ahay habeenadii bambooyinka ku tuuray oo ay fududeeyeen shacabka in la soo qabto. taasi waxay tusaale u tahay wada shaqeynta hay-adaha amniga bulshada, in haddii muxuu ahay hadda halka ay joogaan isaga sii dhowaadaan in la gaari doono muxuu ahay in ay yaraato ama la waayo wax dhibaato ah oo shacabka gaaro. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.